Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Soomaalidu waxay siyaabo kala duwan subageedaha ugu daaweysaa xanuuno dhowr ah waxaana ka mid ah 1. Gooryaanka iyo bakteeriyada caloosha 2. Hargabka iyo filada 3. Xanuunada lafaha ku dhaco sida riixa iyo rheumatism-ka 4. Baxnaaninta iyo kasoo kabsashada dhaawacyada iyo lafa jajabka 5. Xanuunka shaqosha ama eedinyada 6. Xanuunka neerfaha ee sinta galo ee sciatica 7. Xasaasiyadda iyo xanuunka neefta ama xiiqda 8. Gaas calooleedka nooca boogta leh 9. Dilanka haweenka 10. Korriimo la'aanta carruurta. Waxay kaloo Soomaalidu sheegtaa in raganimadu uu xoojiyo, in difaaca jirka sare u qaado iyo inuu jirka ka saaro wixii lid ku ah sida sunta wixii la mid ah. Dadka joogteeya subageedaha qaniinyada bahalaha ma saameeyaan, sidoo kale daawada suuxdinta ee qalliinkana ma qabato. Marka su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxaa ka jira in subageedaha uu daaweeyo xanuunadaas kor aan kusoo xusay. Marka hore, subageedaha ee barida laga sheelo inuu daawo yahay waxaa noo sheegay rasuulkeena suuban nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Waxaana jira xadiid ka hadlayo sida loogu daaweeyo xanuunka neerfaha ee sinta galo kaasoo loo yaqaano sciatica, afka carabigana lagu dhaho cirqunisa. Xadiidkaas wuxuu ku shardiyey in idahaas la daajiyey caws dabiici ah. Waxaa kaloo shardi looga dhigay in markii daaweyn loo isticmaalayo subageedaha in calooshu ay faaruq tahay weliba la isticmaalo subaxdii hore. Sababta labadaas shardi loogu xiray waxaa la ogaaday mar dhow. Cilmi baarayaal u dhashay dalka Australia ayaa waxay qoreen research ay kaga hadleen arrimahan soo socda. 1. Barida idaha waa sida kuruska geela oo kale, waxaa lagu kaydiyaa wixii nafaqo ah oo hadhow xilliyada abaarta uu neefku isticmaali lahaa. Sidaas awgeed, xoolaha wixii la siiyo ayay keydsadaan. Haddii geedo dabiici ah uu daaqo oo la siinin waxyaabo la farsameeyey ama aan la daajin meel wasakh ah ama magaalada aan lagu korin, faa'iidadiisa way ka badan tahay midka lagu soo koriyey waxyaabaha aan dabiiciga ahayn. 2. Midda kale, sida la wada ogyahay subaga xoolaha waxaa loo qaybiyaa 2 nooc. Nooc jirka dhibaato u keena waana midka kolestaroolka keeno waxaana loo yaqaanaa saturated fat. Noocna faa'iido ayuu u leeyahay waxaana loo yaqaanaa unsaturated fat. Sida awgeed, haddii idaha la daajiyo dhul nadiif ah oo magaalada ka baxsan, subaga laga heli karo wuxuu noqdaa mid si dabiici ah ku yimid waana unsaturated fat. Subagan xitaa waxaa lagu daaweeyaa wadna xanuunka iyo kolestaroolka waana midka laga sameeyo maadada omega 3. Haddii marka la cuno ama la cabo subageedaha iyadoo caloosha cunto ku jirto ama lala cuno cunno kale oo dufan leh, waxay ka hortagi kartaa in jirku ka faa'iideysto subagaas. Waana sababta keentay in markii la isku daaweynayo in subaxdii hore la isticmaalo. Sidoo kale dadka isticmaalo way yaqaanaan subaga idaha haddii la cuno caloosha faaruq ah, jirka si dhaqsaha ayuu ku gaaraa oo qoyaanka jirka oo dhan ayaa laga dareemaa sharaftiisa sida candhuufta, dhididka, ilinta iyo kaadida. Maadaama dagaal culus lagu hayo wax kastoo dufan leh iyadoo laga cabsi qabo cudurka kolestaroolka, dadkan aysan aqoon u lahayn dufanka noocyadiisa kala duwan, waxay keentay in dufankii waxtarka lahaa laga cararo. Taasina waa fikrad ku dhisan aqoon darri. Jirku kama maarmi karo dufan. Qaybo badan oo jirka ka mid ah dufan ayay ku shaqeeyaan, haba ugu horeeyaan maskaxda iyo dareensidayaasha oo idil. Sidoo kale macdanta iyo fitamiinada qaarkood jirku kama faa'iideysan karo dufan la'aan. Xanuunada kor ku xusan oo ay Soomaalidu ku daaweyso subagan qaar badan oo ka mid ah waa wax cilmi baaris lagu arkay, qaarna waa wax khibrad iyo aragti lagu arkay. Mana ahan Soomaalida kaliya dadka isticmaala subaga idaha ama isku daaweeya. Waxay cilmi baarayaashu sheegeen in subaga ugu caafimaadka badan ee la isku daaweeyo uu yahay midka laga helo idaha madaxa madow oo barida weyn leh, seentiisuna ay gaaban tahay, waana midka dhulalkeena badanaa aan ku dhaqanno. Waxa kale oo la xaqiijiyey waxaa ka mid ah ku daaweynta cilladaha ku dhaco laabatooyinka ama kala baxida shanqarta ka yeerto, kuwaas oo ay keenaan xanuunada rheumatism-ka, tufta ama riixa. Waxaa kaloo iyadana la arkay in dadka qaba xanuunka gaaska peptic ulcer in lagu daaweeyo si boogta caloosha dhaqso u reysato. Waxaa kaloo jirta diraasad la daawacay sanad ka hor oo lagu sheegay in subageedaha uu daawo u yahay nooc ka mid ah kansarka ku dhaca sanbabka loona yaqaano non-small cell lung cancer, welibana lagu tijaabiyey dad qabay xanuunkan. Waxay cilmi baarayaashan sheegeen inay arkeen in subageedaha ay ku jirto maado loo yaqaano C17 oo disho unugyada kansarka, sidoo kale maado oksijiinta ka xirto unugyada kansarka oo u diido inuu koro, sidoo kale maado ka hortagaysa in unugga jiran meel kale u guuro iyo inuu tarmo. Ku daaweynta subaga idaha waa arrin soo jireen ah oo boqolaal sano ka hor la isticmaali jiray. Inkastoo inta laga og yahay waxtarkiisa ay yar tahay, haddana waxa ay soo taraya cilmi baarisyada taageersan isku daaweynta subaga idaha iyo siyaabaha uu cudurrada ula falgalo. Haddii aad heli kartid wan jabsaday oo baadiye laga keenay, beerkan aadan ka jiranayn, waad isku daaweyn kartaa. Qaababka la isku daaweeyana waa isagoo subagiisa la cabo, la marsado, cuntadana lagu darsado. Wixii su'aal ah noogu reeb qaybta comments ee muuqaalkan, waana mahadsantahay.